أهلا وسهلا أصحابتا كحران جنال كيغا ميل وليبا أو أدوني كجوكتان سودوادا أدبان إذين سلامية مر هدادي أركتان أنيقو سا موقال أسو دوبي وقرقيقا نحفرديا waxaad iga sugtaan bawaahe waxaad u wanaagsan watahay runtii horto waxaan rabaa asxaabtina uga mahad celiyo laba astaan oo hore aan u soo galiyay oo runtii comment fara badan aad ka soo dhiibateen oo aad idhaadeen farxiyo sax waaye farxiyo waad mahadsan tahay astaamaha waxay ahaayeen astaamaha gabadhu ay ku garan karto wiilka jacaylka beenta la jilayo iyo mid aan wiilasha u soo galiyo ahaa wiilka sida uu ku garan karo gabadha jacaylka beenta ah la wado runtii aad baad uga soo falceliseen waan idin kaga mahad celinayaa waan idin jeclahay haddaba caawa astaamaha ayaan wadaa laakiin kuwii hore way ka duwan tahay oo waa astaamo kale haddaba caawa maxaan idin hayaa warka idinku badinin waxaan caawa idin hayaa maxaa keena in qofka aad jeceshahay uu isbedelo marka uu ogaado inaad adiga si dhaba u jeceshahay okay maxaa keena in qofka adi aad jeceshahay oo naftaada ah oo noloshaada uu isbedelo kadib marka uu ogaado inaad adiga si dhaba u jeceshahay astaamaha saan caawa idin haya maxaa keena maxaa u sabab ah hana isdhihnaa farxiyo wax qiyaaliya ayay idin aqrinaysaa ama beena waa waxaan soo odorso oo waqti aniga iiga baxay si idinka aan idinla wadaago waana waraaqaha okay marka sida horta aan wada ogsoonahay ma jiro ruux qalbi leh oo aanan jacayl dareemin ama rabitaan u qaadeynin qofka uu la socdo laba ruux haday wada socdaan laazim jacayl meesha uu imaanaya xiriirkoodna uu run ka yahay mararka qaarna way dhacdaa in lamaanuhu ay isku dhacaan oo isfahmi waayaan khilaafkoodu xoogaysto qofka kale uu ku kalsoonaan waayo taana way dhacdaa jacaylka lagu sheegayna waa farxad iyo udgoon neecaw macaan leh ya marka ay labada ruux ee lamaanaha ah ay sidii loo baahnaa isugu wadaano marka qofka kale uu dhinaciisa uga ilaalinayo jacaylka uu isagu u qabo marna waa murugay tiiraaya aan ka soo laabad lahayn marka uu khilaafka iyo dagaalka iyo dhibaatada uu jacaylka ka dhamaan waayo haddaba marka caawa waxaan idin hayaa maxaa keena qofka aad jeceshahay inuu durba isbedelo markuu xaqiiqsado inaad adiga jeceshahay waliba isaga oo kuu sameeyo ballanqaadi iyo axdi u fiirso inuusan kaa dheeraanin weligiisa waa asagoo ballanqaadi hore kuugu sameeyey intaan ku geynayaa xaggan kuugu samayn doonaa gurigaasaan kuu dhisayaa gaarigaas baan kuu gadayaa iyo axdi ah anigoo waxaad igu weyn kartaa anigoo dhintay anigoo sakraad noqday anigoo inta ka dhacay anigoo godgalay yacni axdigaas kaa qaaday maxaa keena haddana inuu isla markiiba durbi isbedelo oo uu qofkii noqdo qof nooc kale ah adigiina markaad jacayl dhab u qaado gabdho waa iska masaakiin waxaa laga yaabaa dee marka hore inay adkayso istiraad alle leh ninkani iyo sabeen ku sheegin laakiin muddo kadib waxaa laga yaabaa inay isdhaad ninkan balamaha iyo xaqiiqooyinka iyo inta waan ku guursanayaa hebel aroos baan ku dhigayaa intaan ku geynayaa familigaaga saabaan yeelayaa adiga halkaasaan ku geynayaa waxaa dhan ku dhahay haddana axdi kula galo ku dhahay anigoo dhintoon baad igu weyn kartaa in markaa qalbigii ay saa ugu furto laakiin isagina uu kasban waayo durba gadaal isku bedelo okay mararka qaar marka aad ka dalbatid inaad wada kulantaan oo kaleetana iska meermeerinaya okay waxaa laga yaabaa in fariimahaaga uusan kasoo jawaabin oo qofka isbedel mugtay fariinaad u direysaa maba ka jawaabayo okay telefoon baad ka wacaysaa maba ka qabanay because uu ku ignore gareynaya almost wuxuu ogaaday inaad adigu dhab u jeceshahay oo gabar yahay aadan ka maarmin mararka qaar waxa laga yaabaa inaad ka dalbatid inaad kulantaan kulan war xageen ku kulana shalna waxa laga yaabaa inuu soo ka dalban jiray oo kugu qasbi jiray marka isagii wuxuu waqti juhdi ku bixinaya inuusan kula kulmin marka marmarsiyo kasta uu sameyn karo ayuu kugu sameynaya okay marka haddaba marka xaqiiqda arrimahan aan soo sheegay waxa sabab u ah adiga gabarey waxaan dhan in marka aad dhab u jeclaato uu marka isbedelo adiga ayaa sabab u ah gabarey waxa isweydiinaysaa aniga sideen sabab ugu ahay waaba jeclaayo noloshaydu ahay qof adduunyada aan ugu jeclahay ayuu ahay raali ahaada gurigan jooga daaqada ii furan haddii aad qaylo maqashaan okay waxaad sabab ugu taan kuu sheegayaa saddexdan arrin ee soo socota ayaad adigu sabab ugu tahay in qofkaas uu isbedelo ama uu noqdo uu iska bedelo sidii uu ahaa ama jaceylkii uu ku qabay maxay tahay marka ugu horeyso
aad adigu qof xiriir la wadaagayso waa inaad ogtahay qiimaha adi aad leedahay. Okay, waa inaad ogtahay qiimaha adi aad leedahay si uu qofkaas u ogaado adiga qiimahaaga. Adi haddii aadan isqiimeynin ma jiro qof adiga ku qiimeynayo. qofna ha isku liidin baahi waliba oo aad u qabto. Okay, qofna ha isku liidin baahi waliba oo aad u qabto. Okay, labo, cafiska faraha badan ee aad cafinayso marka lamaanahaagu kaa galo qaladaadka yaryar jooji. waayo cafiskaas waxa uu wax u dhimayaa qiimahaaga. qofkan waxa uu ogaanayaa inaad u baahan tahay, waxaana macquula inuu beri qalad weyn kaa galo mana kula xisaabtami kartid waayo cafintaadaa badatay. qalad yaruu kaa galaya dhib male baby, qalad kaluu kaa galaya. yacni qaladkaaga markuuba qalad saxa kaa galo ha yaraado ha weynaado automatically waa inaad qaladkaas ku qabsataa waada u cafin. laakiin hadduu cafiskaaga bato hadhowda qaladaadka waaweyn kulama xisaabtami karta, maxaa yeele wuxuu leeyahay kuwii horeba igulamaysan xisaabtami jirin. 3, qofka ha siinin qiimo ka badan intuu u qalmo. ani midaan aada iyo cajabisay, qofka ha siinin qiimo ka badan inta isagu u qalmo oo adi aa u aragtid ha siinin. Okay, hana tusin jacaylka xaddaafka ayaad u qabto. wuu kaa caajisayaa, wuxuuna ogaanayaa inaad gacantiisa ku jirto aadan marnaba meel kale ka aadi karin. ka sheekee haddaad jacaylka ka waashid subaxdii, duhurtii, casartii, maqribkii, cishihii, maxaa la yidhaha salaati dhexda ku jirta, wixii oo dhan asaa u wacdid. haddaba wuxuu leeyahay tan waa kugu soo waalatay warniyo yaa kaa qabta. marka istartiibi yaa bareeg qabo. Okay, marka maxaa xal u ah isbedelkan imaaday? marka taas waay maxaa xal u ah isbedelkan aad ku aragto qofkii aad wada socoteen ee xiriirka jacaylka uu idinka dhexeeyey. Okay, 4 arrimood ayaa xalka ku jira inaad samaysid gabaray. Okay, 1, qiimo u yeel adiga naftaada, isqiimee, ha isbahdilin. haddaad iskhilaaftaan ka fogow waqti kooban. haddaad iskhilaaftaan ha ka daba ordin, xaguu ka baxay, xaguu ka dhacay, ima soo waco, intuu aaday, warii raadiye. jooji yaa waqti kooban qaado. qofkan isaga buu kaa xanaaqsamaan, wait intuu isagana kaa soo raadinayo ama labadiina aad si isku mara isku raadinaysaan. Okay, 2, hadduu ku soo raadiyo wuu ku jecel yahay qofkaa, laakiin hadduu dib kuugu soo laaban waayo waxaad ogaataa in awalba uusan ku rabin danna kaa lahayn. dee qofku jecel haddaad isku dhacdaa 2 gooraba hadduu ku jecel yahay dhab ka tahayo mustaqbal fog kaa leeyahay wuu ku soo raadinaya. laakiin hadduusan ku soo raadin isagaba baleeyar ayuu iska ahaa. wiilasha iga raali ahaa, idinkana markiina ayaa nii soo gelin doonaa, ha igu xanaaqina. Okay, 3, kula xisaabtan qaladkiisa. waataan hore usoo sheegay, siina fursad uu kugu raaligeliyo isaga hadduu ku raaligelinayo. hadduu ku soo raadiyo maya. Okay, 3, kula xisaabtan qaladkiisa. 3 aan marayna Soomaan, siina fursad uu kugu raaligeliyo uuna ku qirto qaladkiisa. hadduu intaas sameeyo waqtigaaga qaado, kadib cafi. horaha ka cafininayaa. waxaa laga yaabaa wiilasha inay dhahaan farxiin sidaad u socotay maxaa gabdhihii baad nagu diraysaa, laakiin wallahi waa xaqiiqo, waa la idin ogaado caatiin. Okay, marka hadduu qaladkiisa qirto horaha ka cafin, cafisa iga taha hala soo boodin. maxaad samaynaysaa? waqtigaaga qaado, isbooje, kadib cafi. Okay, 4 oo tan ugu dambeyso, ha isku dhadhajinin. ha isku dhadhajinin, hana tusin jacaylka dhabta ee aad u hayso, waayo jacaylka xaqiiqda laysma tuso ee waa lays dareensiiyaa. cajiib, jacaylka dhabta laysma tuso ee dareenu ku imaada. marka ha isku dhadhajinin. yaa intee u socotaa, intee ka baxday, ila soo hadal, ima wixine xagee masajkaaga ma arkin. jooji, ha isku dhadhajinin. maxaa yeele kulama qofku uu ogaado inaad aada isugu dhadhajinayso aadan ka maarmin, hawlihiisu sii wadanaya. marka horta astaamihii halkaasay ku egyihiin. maxaa keenay in qofka aad jeceshahay uu isbedelo kadib markuu ogaado in adigu aad dhab u jeceshahay. may fahamteen? marka intaasaan horta kusoo koobaya. dee wiilasha dhankiinane waa niisoo cadaalada aan ahay, aniga dhankiinana waan soo gelin doonaa. Okay, oo gabdhaha laakiin ay mar waliba gabdhaha ayaan ka bilaabaa oo dee mar walba iyaga ladies first ayaa ka ah.
marka caawa sirtan gabdhahana usoo geliyay tan wiilasha waa lasoo odaraysa doonaa iyadana waan idiin soo gelin doonaa sidii markaa labadii astaamood oo horeba aan ani cadaalada u sameeyay ayaan hadda u samayn doonaa waa maasantiin sida mar waliba aad channelkayga ugu xirantihiin oo aad iila socotaan waanan idiin mahad celinaya tan kala hamoodina qisooyinkii inaan ka fadhiistay insha Allah ayagana waan usoo fadhiisan doonaa laakiin mararka qaarkood xoogaa waa in nashaad la isku yeelo oo mar walba murug soo ma gelin karna waa in mararka qaar la qaraaxaysto aad baad mahadsantiin halkaasaan kaga baxayaa subscribe-ka iyo share-ka iyo like-ta iyo comment-iguna waa xaggiina sida aan awalba idinkaga bartay sidaad ii support gareysaan mar waliba aad ii jeceshiin oo aad ila socotaan aadan idinkaga mahad celinaya habeen wanaagsan